Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam asxaabta meel kastaa joogtiin. Walaalahayga sa ii tihiin way fiican tihiin. Kusoo dhawaada channelkayga Bushra Cooking and Healthy. Maanta waxaa rabaa wax yar oo macmacaan oo kii ciida inaan idinla share gareeyo. Insha Allah macmacaan oo waxa waaye dabna ka rabin waxna ka rabin oo fudeed yani easy ah. Saddex waxa isku dardaraysid la waaye wax badan ma ahan. Marka walaalahayga ila fiiri waxyaalo u baahnaan يعني macmacaan kan waxa ugu talagalay dadka sokorta iyo waxaas qabaan iyo qof kasto isticmaali kara maxaa waaye hadii qof ku imaado macmacaan xalwad iyo waxaas dhibayaan macaankan ayaa ugu bedelaysa cause sokor dhan male sokortiisa waa wax natural ah sokortiisana wax oo dib qofka u keenaysa ma ahan marka waxyaalo ka kooban yahay isla fiirin walaalahayga macaan aad u macaan waaye ila fiiri insha Allah haday igu cusub tahay subscribe iyo samee like and share iyo comment ina iga ilaawin gambaleelka taabso si waxa u soo dhigo aragtid adoo ku mahadsan marka waxyaalo u baahan ila fiiriya maanta macaankeena ka suubsan rabno first of all maxaa haysanaa zabiib ayaa meeshaas ku jiro raisin ayaa lahaa zabiib waa kii oo madowga ah biyo ayaa ku soo radiyay adi ilaa 10 minutes ayaa biyo la soo dhigay meeshaan maxaa ku haysanaa looska shiidan almond oo soo grand gareey oo shiidan asoo shiidan ayaa soo gatay meeshaan waxa waaye qumbe oo shiidan asagana oo hoolan ayaa haystaa marka iyo mashiinkii iyo waxyaalaha ku qurxin lahayn marka ila fiiriya kan ayaa ku shubanaysaa granderka waxaa ku daraysaa almond shiidna ayaa ku daray haddana maxaa ku daraysaa qumbaha ani marka waxaa isticmaalayaa hal bakeeri oo zabiib ah iyo half bakeeri oo almondka ah iyo half bakeeri oo qumbaha ah marka qiyaasta adi waaye haddii aad badan tihiin iyo haddii kale adaa isku abadsanaysid insha Allah marka walaalahayga waxaa kaloo u baahanahay 2 qaado oo caano ah waxaana 2 qaado si meesha kuugu qoydo alaabta ay kuu qoydo yani waxa dhan qaleel waaye 2 qaado ayaa ku darayaa inta ayaa isku habeyneynaa marka waa kasa waa soo shiidayaa wax yar shanqarta diidaya isku soo laabaneynaa waa kasa walaalahayga saas ayuu noqonayaa markaa shiidid laakiin still si fiican ayaa u shiidayaa soo marka ila socdo iyo maxaa kaloo ku darsanaynaa walaalahayga sorry drinking chocolate ama cocoa chocolate ka haysatid oo hal qaado ah cocoa chocolate ama drinking chocolate si uu coffee u noqdo kalarkiisa uu kafee u noqdo marka kan ayaa ku daraya hal qaado oo cocoa-gan ah kan hadda waxa waaye drinking chocolate waaye waxa ka rabnaa coffee marka waa kana walaalahayga waa ujeedin saasuu noqonayaa marka saasuu isku dhex galay haddii maxaa la dhahaayay uu zabiibka uu adeeg ka yahay camal wax yar caano oo ku badsanay haddaa badinayso waa ku badsanaysaa qiyaasta adila qiyaasanaysid marka si fiican in iska dhex galaan waaye waxaa kan aad suubinaysid marka meeshaan ayaa kusoo shubaneynaa insha Allah marka weelkan ayaa kusoo shubayaa iyo wixii kale aan ku sameynayna isla fiirineynaa marka birta ayaa ka bixinaya
sorry walaalaheyga albaabka la soo marka waa kaasa walaalaheyga saas ayuu kusoo baxaa marka waa ku kuuseenaa marka muxuu u baahan yahay in la qalajiyo wax yar oo qoyaan marka waxaa ku qalajinaynaa coconut powder meesha maxaa ku haystaa coconut powder qumbe oo budo waaye marka isaga ayaan ku qalajinaynaa 2 qaado ayaa ku daraya soo kalaya sas walaaqaysaa yacni caanihii aan ku darnay iyo zabiibka markaa radisid dheecaan ayuu yeelanayaa haddii caanaha kugu yaryihiin oo ku darsan kartaa ilaa si fiican uu kugu shiidmado marka qoyaan noqdana kana ku qalajinaysaa oo dry uga dhigaysaa I hope ina arkaysiina jeclahay si fiican ugu jeedin haddaa rabtidna kiilooska waa ku qalajisan kartaa almondkan waa ku qalajisan kartaa aan ku darnay alaabtan waxaa waaye nafaqo waaye culays waaye heavy waaye waxaa waaye 1 xabo qofkii cuno 2 xabo inuu biyo cabo waaye ama qaxwada ku cabo oon ayaaba ku qabanaya cause waxa oon ku qabtana waa wax borotiinkiisa badan yahay loos ayaa ku jiro zabiib ayaa ku jiro iyo qumbe 3 shay oo aad u culus waaye marka saas ayuu noqonayaa gacanteeda inaa ku kadsoo saas ayuu noqonayaa marka waa kuuskuusaya sorry walaalaheyga shanqarta gacanta ayaa wax yar saliid marsaday soo iigu dhadhagin kaasa marka saas u kuusaya kaasa saxanka ayaa saaranaynaa kale xibo haddana sidoo kale kuuska waa weynaysan kartaa waa yaraysan kartaa adile waaye qiyaasta hadda ma weynaynayo mana yaraynayo waa kaasa saas ayaa u kuusaya markaas walaalaheyga saas ayuu u kuusan yahay marka dhowrkaas xabo idin tusaa waa soo dhameynaa marka saas ayaa kusoo dhameynayaa kuuskuuskaas ayaa kusoo dhameynaa kadib ayaa isku soo laabanaynaa wixii aan kor ka marin lahayn haddana marka waa kaasaa walaalaheyga saanaan kusoo dhameeyay kuuskuuski marka hadda step 1 waa soo dhameynay waxaa galeynaa step 2 markii sidii u qalajin lahayn oo u qurxin lahayn marka meeshaas maxaa igu jiro looski oo shiidnay oo almondka ahaa saana u dhex gelinaynaa marka almondka lasas u gelinaysaa
almoon kale sas ugu qalajinaysaa waana ku qurxinaysaa korkiisa yacni inuu kalarku iska bedelo. saasaa ugu wadaysaa. saasaa ka dhigna kastaas 4 xabo. marka qaybta kalena waxaa ka dhigaynaa qumbe. marka adiga haddaa jeceshahay sokorta oo budada icing sugar waa marsan kartaa. yacni waxaa waaye kan ani hadda waxaan u sameynayaa macnaha caafimaad ahaan qofka inuu sokorna ka cararin macaana uu cuno. dadka sokorta iyo wax xanuun qabaan oo sokor isdhahayaan sokor ma cuni karaan macaan ka dhibaayo oo iidina maasha allah wax macaan inay cunaan way rabaan miskiinyaasha. sorry albaabka ayaa lasoo garaacaya. marka saas ayaa u yeelaya. kii kalena qumba ayaa sas u dhex gelinaysaa. qumba ayaa ku dhadhajinaysaa. marka walaaleyga qaybta labaadna waa kanaa. qumba ayaa sas u sameynaya. maasha allah waaye. marka saas ayaa kusoo dhameynaya isku soo noqonayna insha allah walaaleyga. waa kaasaa walaaleyga saas ayaa kusoo dhameeya quruxda badan leh maasha allah. marka haddana meesha aan ku shushubeynaa. marka waxaa sameynayaa waxaa ku qurxinaya bahalkan ayaa ku qurxinaya. sprinkles ayaa la dhahaa. saas ayaa u saareysaa. bahalkan waaye keegagga iyo wax lagu quruxsado sprinkles waaye. golden and white waaye marka anaga goldenka ayaa ka isticmaalaya insha allah. kalna saa hal dhinac uga soo saareysaa. saasuu u qabsanaya. kasa marka walaaleyga waa kaas sidaas quruxda badan ayuu kusoo baxay. hal xabo ayaa meesha ugu daraya. maasha allah. waa ku badsanaya haddii aragtina waa ku yareynaya haddii rabina ma sameynaysid bu qurxis le waaye. waa kaasaa marka maasha allah qurux ayuu kusoo baxay insha allah waaye. marka kistaas ayaa idinla qaybsanaya walaalaheyga maasha allah. qofkii sokor qabo dadka waaweyn waxay u tahay wax yar oo macaan aa gaxwo ku siin kartid oo maxaa la dhahaye kaala arag oona dhibaato u keenin ee walwal ka qabin. maanta sokor ayaa cunay wax macaana cunay ma jirto. waa natural and healthy oo waxyaalo healthy ah oo macaan ah maasha allah. zabiibka aad ayuu u macaan yahay aad ayuuna caafimaad badan u leeyahay faa'iidooyinkiisa meesha ma ku soo koobi kari. marka intaas yar ayaa idinla qaybsanaya walaalaheyga. waa mahadsantihiin kommentiyaashiina quruxda badan dhiirigelintiina waa ku mahadsantihiin. markastana waa idinka duceynaa insha allah. marka jazaakum allahu khayr. sidaas iyo see you the next video insha allah. Eid Mubarak in advance. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.